Assalaamu calaykum. Maalinimo wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan waxaan filayaa inaad caafimaad qabtaan. Ka hor intaynu guda galin muuqaalka, laag inoo saar. Maanta waxaynu qaadan doonaa maadadeennii pharmacology-ga casharkii afaraad qaybtiisa labaad. Qaybtan oo la socota casharkii hore ee ahaa antihelmintic drugska. Qodobada aynu ku baran doonaa casharkaani waxay noqon doonaan daawooyinka loo isticmaalo bellethelmintiska iyo daawooyinka loo isticmaalo nematodeska inagoo si gaar ah u baran doono mechanism of action-ka ay daawadaasi leedahay iyo side effects-kaba qaabka ay u shaqeyso daawadaasi iyo saameynta ay leedahayba. Waxaan filayaa ilaa dhamaadka inaad la gaari doontid insha Allah. Ka hor intaynu guda galin muuqaalka, waxaan idinkaga mahadcelinayaa 800 ee subscribe ee aad na gaarsiiseen iyo asxaabta maalinba maalinta ka dambeysa ku soo biiraysa channelkani. Abaalkiina maahan mid aan gudi karno. Heerkan iyo heerka sii sareeyaba waxaan rajaynaynaa inaad ina gaarsiin doontiin biidnillaahi jalla wacala. Waxaan rajayn doonaa hambalyada xigta inay noqon doonto 1,000 ee subscribe inagoo gaarnay insha Allah. Paracequental waa daawo loo isticmaalo in lagu daaweeyo cudurka loo yaqaano schistosomiasiska. Cudurkaas oo laga qaado cabidda biyaha aan nadiifka ahayn. Khaasatan daawadani waa daawada kaliya ee lagula tacaalo infekshanada uu keeno nooca helminthiska ee loo yaqaano dermatodeska. Mechanism of action-ka ay daawadani leedahay aynu ka hadalno. Daawadani waxa ay cell membrane-ka u ogolaataa in calcium badan ay soo gasho gudaha selka, taasoo keenaysa inuu noqdo cell membrane-kii inuu sameeyo contraction, taasoo fududayn doonta marka inuu parasite-kii ama schistosome-kii uu noqdo paralyze. Effects isku arki doono qofka marka uu qaato kadib daawadani waxaa ka mid ah daawadani inay qofka ku keento dawaqaad, in qofka uu dareemo madax xanuun, in qofka uu dareemo calool xanuun oo ah stomach pain, ama ugu dambeyn inuu qofku dareemo qandho. Afartani astaamood mid ka mid ah haddii uu qofku isku arko ha la socdo inay tahay effectiga daawadaasi ay leedahay. Nicotinamide waa daawo bedel u ah daawada loo yaqaano paracequental. Daawadani waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo infekshanada uu keeno nooca helminthiska ee loo yaqaano schistodeska. Mechanism of action-ka ay leedahay daawadan haddaynu fiirino, waxay inhibition ku sameysaa mitochondriihii uu lahaa parasite-ka in uu sameeyo phosphorylation, processka loo yaqaano phosphorylation. Processkaas oo ah in adenosine diphosphate oo ahayd ADP oo loo yaqaanay energy carrier loo bedelo ATP. Kadib markay dhacdo arrintani, parasite-ka waxa uu noqon doonaa mid paralyze ah, ugu dambeyna dhinta. Marka qofka uu isticmaalo daawadani, side effects oo la kulmi karo waxaa ka mid ah nabro ku soo baxa maqaarka, dawaqaad uu qofku dareemayo oo ah dizziness, iyo cuncun ka yimaada dhanka barida ama meesha loo yaqaano rectal area ayaa imaan kara. Haddii ay dhacdo mid ka mid ah intaani, haddii uu qof bukaanka isku arko kadib marka uu qaato daawadani, ha la socdo intaasi waxay noqon karaan side effects-ka laga filan karo kadib marka la isticmaalo daawadani in la isku arko. Albendazole waa daawada ugu horeysa ee lagula tacaalo infekshanada uu keeno schistodeska. Haddaynu gudubno mechanism of action-ka ay leedahay daawadani waxay ka ilaalisaa in ay ka ilaaliso goryaanka inuu noqdo mid quuta. Sokorta nooceeda loo yaqaano glucose jirka gudihiisa ku jirta inuu quuto ayay ka ilaalisaa, taasoo keenaysa ugu dambeyn in marka uu waayo glucose uu u qaadan jiray as energy in uu ugu dambeynba dhinto. Side effect ay leedahay daawadani albendazole waxaa ka mid ah in qofka lagu arko madax xanuun, labalabo, matag iyo calool xanuunba. ilaa qaar ka mid ah bukaanada mooyaane inta badan
waajib maahan in lagu arko. Qaar waa lagu arki karaa, qaarna laguma arki karo. waxaan filayaa marka inaad fahantay qaybtani. mebendazole waa first line agent. waa dawada ugu horeysa ee lagu daweeyo infekshanada uu keeno nooca loo yaqaano nematodeska. inta badanna dawadani sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo kaysaska goryaanada intooda badanba. mechanism of actionkiisa markaynu ka hadalno waxa ay iska agdhow yihiin albendazole. dawadani waxay gabi ahaanba xirtaa qaadashadii parasite-ka uu qaadanayay glucose-ta. kolba hadday dhacdo parasite-ka inuu waayo glucose-taasi, ugu dambeyn waxa uu noqonayaa mid dhinta. side effects-ka bukaanka uu isku arki karo waxaa ka mid ah kadib marka uu qaato dawada in uu dareemo calool xanuun, shuban iyo qandho. parental palmate waa daawo ku habboon in lagula tacaalo infekshanada uu keeno nooca helminthiska ee loo yaqaano nematodeska. daawadani marka oral loo qaadanayo waa mid liita absorption-keeda, waxayna ka howlgashaa caloosha. mechanism of action-ka ay leedahay dawadani haddaynu fiirino, dawadani waa neuromuscular blocking agent. waa daawo xanibta nerveski iyo murqihii wada shaqaynayay uu lahaa parasite-kii, taasoo keenaysa marka paralyze uu ku yimaado koryaankii kadibna uu dhinto. side effects-ka ay leedahay dawadani haddaynu fiirino, bukaanka marka uu qaato kadib waxa uu isku arki karaa labolabo, matag iyo shubanba. haddii bukaanka markaad siisid dawadani kadib uu isku arko calaamadahani, la soco waa effects-ka ay leedahay dawadani. ugu dambeyn waxaynu soo gaarnay gabagabadii casharka. haddii aad casharkani qaybtiisa hore iyo qaybtiisa labaadba aad wax un ka fahantay, su-aashani ayaan doonayaa inaad iga jawaabtid. waxayna noqon doontaa su-aal case study ah. su-aashan waxay u dhihi doontaa sida soo socota. qofka bixiya su-aashani jawaabteeda saxan, waxaynu ku sheegi doonaa muuqaalka xiga aynu ku sharxi doono maadada tani ee farmakolojiga noqon doonaan casharkeena 5aad. guulaystayaasha waxaynu ku kala saari doonaa xilliga jawaab bixinta uu sameeyey qof walba. casharka 5aad ee maadada tani intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum.